kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa warbaahinta xogta wararka qodobada aan idiin haynana waxaa kamid ah saddexda sano ee galmudug hoggaankeeda ay dalbadeen inay sii shaqeeyaan oo lug xir ka dhigtay gabagabada garawe shirka ka socda ee dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada dawladda Itoobiya oo fasax aysan ka haysan dawladda federaalka Soomaaliya hanti ay leedahay Soomaaliya qaadanaysa ONLF oo digniin bixisay iyo xaalka oo meel cakiran gaaray nidaamka federaalka oo laga weeciyay sidii uu ahaa Axmed Midoobe iyo Siciid Dani oo taageero u muujiyay maamul goboleed ay dawladda dagaal kula jirto axsaabta mucaaradka dalka ka jirta sida midka uu hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo sheeda kala socda qorshe uu doonayay madaxweyne Farmaajo oo aysan raali ka ahayn mid kamid ah murashaxiinta Jubbaland oo hanqal taagay oo inta Kismaayo tagay saacada ka hor ku baaqay in la sameeyo kacdoon maamulka hadda jira la isaga dulqaadayo madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Xaaf oo ka horyimid qodob ay Farmaajo iyo qeerre u soo gudbiyeen oo ahaa dhexdhexaadinta garabka cadaadad ku sugan ee galmudug dibaddana waxaan idiin haynaa ku-xigeenka hogaamiyaha mucaaradka Venezuela oo lagu xiray magaalada caasimadda u ah dalkaas ee Caracas iyo maxkamad ku taal wadanka Montenegro oo xukun ku riday 2 nin oo u dhashay dalka Ruushka kuwaas oo lagu eedeeyay inay wax ka abaabuleen afgambi dhicisoobay oo dawladda lagu sameyn lahaa intaas waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn warbaahinta xogta wararka waa 9ka bisha 5 ee May 2019 ku soo dhawaada wararkaas oo faahfaahsan qodobo xasaasi ah ayaana ku jira ee nala socda madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa diiday xitaa 2 sano iyo 1 sano in looga dhigo waqti kororsiga uu dalbaday iyadoona shirka magaalada Garowe dhowr jeer lagu kala kacay oo natiijada ay noqotay mid waxba aysan ka soo bixin maadaama wada hadalka dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada hadda ay ku leeyihiin magaalada Garowe uu yahay mid qoto dheeraaday oo maalintii 5aad gaaray ayaa haddana galmudug hoggaankeeda waxay si gaar ah ula soconayaan waxay dawladda federaalka ka qabato codsiyada ay u soo gudbiyeen oo ah in ay ku taageerto sida ay iyagu doonayaan madaxweynaha galmudug ayaa 3 sano codsaday in loogu daro maadaama uu sheegay shirkii magaalada Jabuuti ahla sunna iyo galmudug la isku biiriyay ay ka waqti bilaabanayso dawladda waxay sheegaysaa in Cabdilkariim Xuseen Guuleed markii uu bedelay Axmed Ducaale Geelle Xaaf ay tiriska uga bilaabanayso taasoo la macno ah dhamaadka sanadkan in doorasho galmudug ay ka dhici karto madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Xaaf ayaana cod dheer ku sheegay in marnaba aysan raali ka noqonaynin qorshaha ay dawladdu wado oo ku aadan in doorasho la galo galmudug isla markaana ay arintaas maamulka isku waafaqsan yihiin ee galmudugta dhuusamareeb ku shaqeyso siyaasiyiin ku xeeldheer siyaasadda Soomaaliya waxay sheegeen in dawladda fadeexo iyo ceeb weyn ay ku tahay in hadda sida ay wax u wajahayso oo tayada u baajirta ah isla markaana aysan tanaasulka u muujinin maamul goboleedyada wax tabashada ka muujinaya xaggeeda ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeerre iyo waliba madaxweyne Farmaajo oo saxiibo siyaasadeed haddana siyaasadooda sakiin hoose ay ku socoto ayaana lagu dhaleeceeyay in ay yihiin kuwo aanan ka fakirin danta iyo danaha dalka oo ay dantooda gaarka ah sida ay siyaasiyiinta sheegeen iyagu fiirsanaya labaduba waxay doonayaan 2021 in ay madaxtinimada dalka isku soo mutaxaan oo murashaxiin u noqdaan hogaaminta dalka waana mid keentay in colaadinta siyaasadeed ee hoose labada mas'uul ay noqoto dawladda Itoobiya ayaa waxa ay fasax la'aan baaraysa oo shirkado ay geysay deegaanada Soomaali galbeed shidaalka ku jirana sahmis lagu hayo arintaas dawladda federaalka ee Soomaaliya wax door ah kuma laha marka loo eego xukuumadda Abiy Ahmed oo qorshahaas ka soo dhameysay shirkad Ingiriiska laga leeyahay qayladhaantii ugu weyneed ayaa ka soo yeertay jabhadda ONLF oo iyadu sanadkii hore ku dhawaaqday in ay wada xaajood ay la galeysatay dawladda Itoobiya si loo dhameeyo dagaalkii waqtiga fogaa oo ay Itoobiya kula jireen
afhayeenka jabhadda UNLF Cadaani Hirmooge ayaa waxa uu ka digay qorshaha dowladda Itoobiya ay wado ee shidaalka iyo kheyraadka dhulka ku hoos jira deegaanada Soomaali galbeed ay iyadu qaadato iyaguna aan laga talagelin xaqoodana aysan qayb ka helin. sidaas oo kale dowladda Itoobiya ayaa dhabar jabin ku haysa dadka Itoobiyaanka ah ee deegaanada ku dhow Soomaali galbeed iyaguna dega ee shidaalka dhulkooda laga helay. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu dhaleeceeyay in aysan door fiican ku lahayn arrintan Soomaali galbeed inkastoo dowladda Itoobiya ay isla haysiiso dhulka kililka shanaad oo ay hadda maamul iyaga hoostaga federaalka Itoobiya uu ka shaqeeyo. waa dhul ballaaran xaddi ahaan dhulka laga helay shidaalkaas, taasoo UNLF ay sheegtay in dhaqaalahaas aysan raalli kaga noqon doonin wixii ka yimaada in dowladda Itoobiya ay iyadu jeebka gashato. wafdi uu hogaaminayay madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa waxay maanta gaareen magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud, halkaasoo si weyn loogu soo dhaweeyay xubnaha uu hogaaminayay Sheekh Shaakir. gudoomiyaha Ahlus Sunna wal Jamaaca Macallin Maxamuud Sheekh Xasan Faarax ayaa qayb ka ahaa wafdiga Sheekh Shaakir Gurceel maanta la tagay. waxay ka yimaadeen magaalada Dhuusamareeb, ujeedkooda rasmiga ahna lama sheegin, waxaase la filayaa kulamo gaargaara in ay kula qaataan maamulka degmada Gurceel inta ay joogaan Dhuusamareeb. hadda waxaa ka wada maqan madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Xaaf oo jooga Garowe iyo weliba madaxii xukuumadda oo hadda Gurceel aaday. warar ayaa sheegaya in xurguf siyaasadeed hoggaanka sare ee Galmudug u dhoodo ay soo kala dhex gashay, taasoo kulamo siyaasadeed hadda ay socdaan. wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo waxay sheegayaan in la isku fahmi weysan yahay xulista xildhibaanada baarlamaanka cusub sida ay sheegayaan ila lagu kalsoon yahay. arrintan ayaa timid kadib markii dhowaan gudoomiyaha guddiga doorashada Jubbaland Xamse Cabdi Barre uu sheegay in guddiga uu leeyahay go'aanka ugu dambeeya ee qofka xildhibaanka noqonaya. odayaasha dhaqanka ayaa taas aad uga hor yimid, kuna qeexay musuqmaasuq la doonayay in lagu sameeyo habka doorashada xildhibaanada. dad jooga Kismaayo waxay sheegeen in murashaxiinta qaarkood ay kala jiidanayaan xildhibaanada cusub ee la filayo in ay soo baxaan, kuwaas oo qaarkood hadda la sii ogaanayo cidda ay noqonayaan marka laga tixraaco odayaasha iyo suldaanada ay hoos tagayaan. kulamo badan ayaa ka jiray magaalada Kismaayo oo laga hadlayay xildhibaano isa soo mutaxayay shakhsiyaad doonayay inay kuraasta xildhibaanada beelahooda ku fadhiistaan. dhinaca kalena maanta magaalada Kismaayo waxaa gaaray murashaxa madaxweyne Cabdinaasir Seeraar Maax, kaas oo doonayay inuu madaxtinimada maamulka Jubbaland u tartamo. waa hagaag waxaad nagala socotaan warbaahinta xogta wararka. magaalada Garowe ee caasimadda Puntland wararkeeda haddaan ku laabanana, madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa ka hor yimid qodob saameyntiisa leh oo ay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Qare u soo gudbiyeen, kaasoo ahaa in magaalada Cadaado inta la tago oo dowladda Garwadeyn ay ka noqoto shir halkaas lagu qabto isla markaana la hor keeno Xaaf mas'uuliyiinta Galmudug ee Cadaado ku sugan. waxa uu madaxweyne Xaaf ka biyadiiday oo uu ka soo horjeestay in arrintaas uu sameeyay inta aan waqti kordhinta isaga loo sameeynin. waxa uu tilmaamay waqti kordhinta kadib in diyaar uu u yahay wax waliba oo dowladda ah oo wanaagga Galmudug laga shaqeynayo inuu u hoggaansamo. magaalada Cadaado waxaa ku sugan garabka uu hogaamiye Axmed Maxamuud Baasto oo xildhibaano ka tirsan Galmudugta Cadaado ay u garwaaqsadeen in uu noqdo madaxweynaha Galmudugta sharciga ah. waxaa sidoo kale Galmudug ku shaqeeya madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Axmed Xaashi Carabi iyo gudoomiyaha baarlamaanka Cali Gacal Casir. lama oga sida ay ku dambeyn doonto Galmudugtan kala fogaatay ee Dhuusamareeb iyo Cadaado ku kala shaqeysa, qaabka ay dowladda isugu keeni doonto. markana magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka Jubbaland waxaa gaaray mid ka mid ah murashaxiinta saameynta ku leh ee xilka madaxtinimada isku soo taagay. Sheekh Daahir oo ka mid ah murashaxiintaas ayaa magaalada Kismaayo waxaa markii uu tagay soo dhaweyn u sameeyay qaar ka mid ah taageerayaashiisa, waxaana uu ka jeediyay goobta khudbad u badnayd kicin dadweyne
oo uu la jeeday in maamulka uu yahay midka hadda ka shaqeeya Jubbaland caburin iyo weliba ku takrifal awoodeed mid sameeyay sidaas la ajligeedna ay doonayaan isbeddelka Jubbaland in la taageero. Sheekh Daahir waxa uu ka mid ahaa aasaasiyaashii Jubbaland waxaana saaxiib dhow ay ahaayeen Axmed Madoobe xilligii Raas Kamboni ay ku wada jireen waxaana uu ka mid yahay murashaxiinta loo saadaalinayo in door fiican ay ku yeeshaan doorashada bisha August ee sanadkan dhacaysa. aynu daawano khudbadii xasaasiga ahayd ee uu ka jeediyay magaalada Kismaayo soo dhaweyntiisii Sheekh Daahir oo maaragtay loo diido dhaqdhaqaaqooda iyo xorriyadda laga qaado kollaba mid banaan maaha mana ogolaanayno mana yeerayno. waxaa kale oo aan rabaa inaan ka hadlo muujiyo 3 ii soo qora xulitaanka baarlamaanka Jubbaland 3 ii soo qora kaan doonaan kala baxayay ma yeelayno mana la ogolaan karo wax adduunka jirana maaha. Jubbaland oo dhan doorashadeedu ay ku baaba'ayso 3 wax ogolaan kara ma jiro mana la ogolaan karo baarlamaanka ogolaaday. waa hagaaga kaasina waxa uu ahaa murashax Sheekh Daahir oo u taagan madaxtinimada Jubbaland oo Kismaayo tagay. axsaabta mucaaradka dalka ka jira ayaa sheeda kala soconaya qorshe uu doonayay madaxweyne Farmaajo oo ay raalli kaga noqonaynin xisbiyada himilo qaran iyo waliba UPD ee ay kala hogaamiyeen Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka mid ah axsaabta diidan in madaxweyne Farmaajo waqti kordhin loogu sameeyo shirka Garowe waxaana ay indhaha ku hayaan natiijada ugu dambeysa ee ka soo baxaysa shirkaas. tani waxa la leeyahay saameynta ugu badan waxa ay tahay in mucaaradka ay dabka ku sii shidaan siyaasadda cakiran ee dalka hadda uu wajahayo ee Farmaajona mas'uulka ka yahay. madaxweynaha qaranka ayaa sheegay in sanadka iyo 8 bil ee u dhiman 2 sano loogu daro taasoo ka dhigan 4 sano oo dhowr bil dhiman in xil uu sii hayo uu ku doonayo waxaana ay ka macno tahay 2024 ama 2023 qiyaas ahaan in dalka uu ka dego xilkeeda isla markaana ay axsaabta mucaaradku leeyihiin taasi marnaba diyaar uma nihin inaynu dhageyn maqlaan. waa hagaaga daawadayaal gabagabada ayaan isla soo gaarnay barmarkana qodobka dibadda. sirdoonka dalka Venezuela ciidamo ka socda ayaa xabsiga dhigay ku-xigeenka hogaamiyaha mucaaradka dalkaas. ninka la xiray ayaa lagu magacaabaa Edgar Zambrano waxaana la sheegay inuu yahay ku-xigeenka Juan Guaido oo ah hogaamiyaha ugu sarreeya ee mucaaradka. ciidamada ayaana waxa ay sheegeen in meel amniye la geeyay oo wax dhibaato uusan la kulmin. 8 bisha oo shalay ku beegneed ayaana ciidamada ay xabsiga dhigeen waxaana loo haystaa Maduro go'aan ka dhan ah oo 7 bisha soo baxay oo ay Zambrano iyo xisbigiisa ay saxiixeen. 6 ka mid ah garyaqaano sharciga bartay ayaa sidaas oo kale ciidamadu ay ku raad joogaan. maxkamad ku taalo wadanka Venezuela ayaa sidaas oo kale waxa ay shalay xukuntay dad lagu eedeeyay in ay abaabuleen afgambigii lagu ridi lahaa bilowgii bishan madaxweyne Nicolas Maduro. guud ahaan daawadayaal intaasan kusoo gabagabeynaya warbaahinta xogta wararka oo aad wararka caalamka iyo kuwa Soomaalida ugu muhiimsanba aad ka daawanayseen. inta aan wararkan oo kale dib isku maqlayno sidaas iyo amaana Allah.